munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayay senator xasan iidow maxamed oo ku magac dheer xasan kobac ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. senator xasan kobac oo ka mid ah senatarada Soomaaliyeed lagana soo doorto Hirshabelle ayaa ah ganacsade, samafale iyo aqooniyaan. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan kuwaasi oo ka hadlay aqoonta duruqsan oo ay u leeyihiin senator xasan kobac. hadalladoodana waxaa ka mid ahaa senatorka waxaa caan ku ahay intuusan senator loo dooranin inuu ani wax barta aqoonyahana dhalinyaraha oo beecmushara at the same time samafalka ku fiican oo dadkiisa kaalmeeyo. waxaa jirto qofka intaada dooranin waana taqaan muxuu soo qabtay waani wax soo qabtay waa nin dhalinyaraha aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan lagu taageerayo senator xasan iidow kobac doorashiis lagu qabtay magaalada Jowhar maxalla dawladda Hirshabelle gobolka Hirshabelle. waan kula dardaarmaynaa waxaad ku fariisatay kursi Hirshabelle waxaa laga rabaa dadka Hirshabelle meel walba ay joogaan in aad wax u qabato sida awal wax ugu qabanaysay inaad wax u qabatid inaad mataqaana caawiso masaakiintooda dadkooda wax walba inaad wax u qabato aadan kala saarin gaar ahaan ummadda mataqaana degan gobolka Hiiraan ya marka labaad waxaan halkaan rabaa inaan hambalyo uga soo jeediyo jaaliyadda JJ ee North America iyo senatorka qiimaha badan aan ku soo bixin malxiis iyo laaluush waxqabadkiisa iyo kartidiisa ay dadkiisa ku soo doorteen. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne Cali Guudlaawe oo noqday madaxweynihii runtii ugu horeeyay ee doorasho daahfuran ka sameeyay maamul goboleedyada. waa u faanaa maamul goboleedyada dhammaan waa u faanaa waxaan dhahnaa annaga tii aan sameynay maamul goboleed sameeyay ma jiro. waa dimuqraadiyad rasmi aan sameynay waxaan sameynay doorasho sax aan sameynay. waxaad arkaysaa marka taasna waxa mahaddeeda leh maamulka Hirshabelle iyo madaxweyne Cali Guudlaawe. waxaan kaloo rabaa inaan runtii xasan kobac kula dardaarmo maamulka uu matalo oo kugu matalo senatorka inuu u shaqeeyo maamulkaas. waana soo dhaweynayaa senator xasan iidow xasan kobac. dadkaaga wax u qabo waa dardaaranka dadkaaga wax u qabo dadkaaga wax u qabo insha Allah dadka reer Hiiraan wax u qabo dadka dhibaataysan wax u qabo insha Allah. xasan waa ganacsade weyn oo la wada yaqaano waa samafalo weyn nin howlkar lagu yaqaano wax badanna soo qabtay waan ku faraxsanahay jagada uu qabtay. hambalyo hambalyo hambalyo.